dhawaan ayay ahayd markii xisbiga mucaaradka waddan uu soo gabagabeeyey shirweynihiisii labaad kaasi oo lagu doortay guddoomiyaha hogaamin doona xisbigaasi iyo weliba xubno kala duwan haddaba guddoomiye Cirra ayaa waxa uu si loogu wareejiyey shaqada guddoomiyenimo Xirsi Cali Xaaji Xasan iyadoo bulshooyinka ku dhaqan Jamhuuriyadda Somaliland ay siyaabo kala duwan u arkeen wareejintaasi haddaba waxaa khadka telefoonka ku jira aanu kala xidhiidhnay siyaasi Cabdisaaq Siciid Seed oo ku sugan waddanka Netherland kaas oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee waddani guddoomiye kugu soo dhaweynayaa Bulsha TV waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga muhiimka ah ee aad na siisay aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii si ballaaran baan idinku mahadcelinayaa abaajiro adiga iyo hawlwadeennada saxaafadda siiba Bulsha TV guddoomiye waad ogeyd in hadda la soo gabagabeeyey shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ee waddani isla markaana lagu doortay xubno cusub oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbigu bal ka waran sidoo aragtaa dareenkaaga abaajiro kulankeennana waxaan ugu talagalay inaan ugu hambalayeeyo shacabka reer Somaliland ka xisbi ahaan guusha aanu gaadhnay awgeed shirweynaha soo gabagaboobay shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ee waddani oo lagu soo gabagaboobay caasimadda Hargeysa 15 ilaa 16 waxaa weeyaan runtii waxaa halkaan waxyaabo fara badan oo siyaasadda mundaqada Somaliland iyo geeska ku cusub oo uu ku talaabsaday musharaxa guddoomiyihii hore iminkana musharaxa ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo runtii ugu dhiiraday socodka iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee xisbiga iyo gaar ahaan Somaliland oo ku talaabsaday tallaabooyin dadka bulshada reer Somaliland ay soo dhaweeyeen sidii aynu wada ogsoonahay oo guddoomiyihii isagoo aan gaadhin weli kursigii madaxtinimo ee xilka uu yigsanayay musharaxu ku wareejiyay guddoomiyihiisii magaranaysaa dadnimo ay ku dheehan tahay iyo xushmadii ugu wareejiyey hogaamiyihii Xirsi Cali Xaaji Xasan marka maantana ah guddoomiyaha cusub ee aynu dooranay xisbiga mucaaradka ee waddani runtii aad iyo aad baan anagu ula dhacsanahay xisbi ahaan una soo dhaweynaynaa meel kastana de waad aragtaa daafaha dalka iyo dacaladeedaba in hambalyadu shacabkii ay si weyn ugu soo hambalyeynayaan xisbiga iyo magaranaysaa sharaxa madaxweyne ee mustaqbalka noqon doona insha Allah biidhnillaahi kariim siyaasiga keliya ee dalkan ka saari kara marxaladahan iminka uu ku jiro ee adag guddoomiye waxaa jirta gobolada bariga waa laga taageeray si weyn gobolada galbeedkana iyagana sidoo kale waa laga taageeray hase ahaatee waxaa jirta ayaamaha dambe waxaa social media isla dhex mareeyey hadalla sheegaya inuu guddoomiyuhu ku degdegay wareejinta jagada guddoomiyenimo maadaama oo aan weli fuulin jagadii kursiga madaxtinimada balse aad u aragtaa adigu hadalkaa la isla dhex marayey abaajiro waxaan odhan karnaa musharaxeena Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro runtii arrinkaa kutuliga la soo dhex marayo baraha bulshada waxaan sariir raatoona lahayn marka hoggaankeena musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wuxuu ku talaabsaday habdhaqan cusub oo siyaasadeed oo dimuqraadiyaddu ay ku dheehan tahay waxaan odhan karaa waa taagantahay xilligii la higsanayo hilfooda in anagu iminka horta waxa weeyaan xubno aad u farfircoon ba ku jira xisbiga laakiinse waxaan u aragnaa hoggaan waa tashi la yeeshay inuu yahay Xirsi hoggaanka keliya yeelan kara iminka ka saari kara xisbiga xaaladahan iminka aynu taaganahay in guush ku gaari karnaa ku hanan karno runtii waxaanu aqoonsanahay inuu Xirsi wax fara badan uu ku soo kordhinayo xisbiga waddani oo guusha ku hanan doono insha Allah biidhnillaahi kariim waxaan doonayaa inaan intaa ku daro anoo ka faa'iideysanaya kulankeena nabadirow waxaa la isla daba wareegayay baryahanba baraha bulshada waraaqa xukuumadii hore ee sirta qaranka ahoo baraha bulshada lagu soo daadiyey oo xukuumadda dowladinkeeda uun ka timi marka dee kulley waxaa la eego marka amajkareyso meesha waxaana ka yimaadeen wada iska garanaysaayo dee waxa weeyaan xukuumadda iyada iminka gacanta ku haysta sirtii qaranka marka waan ka xumahay aad iyo aad wax looga xumaado
nin asmadirso lalahaa waxa weeyaan afhayeenka xisbiga kulmiye runtii dalka iyo dadkaba u soo jiiday magac xumo iyo sharaf dhac in maalin walba uu waraaqa ku soo daadiyo baraha bulshada xukuumaddii hore lagu eedeynayo taasi oo wax aad iyo aad looga xumaado waana ka xunnahay madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha nimanka dalka haya xukuumadda dalka Muuse Biixi ka horreeyey madaxweynihii waxqabadka iyo dimuqraadiyadda iyo halgankii Somaliland bakowga ka ahaa ummaddu ay ku taanto in adigu la aflagaadiyo maalin walba wax baraha bulshada lagu soo daadiyo wax aad iyo aad looga xumaado weeyaan waana laga bixi doonaa waxyaabaha dadka isku xanafta ku reebiya insha Allah markaan kursiga xananaadana xisbiga wadan aad iyo aad noo salaamantihiin hadaatiin bulsha TV aadna weyn ku mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Cabdisaaq Siciid Seed oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee wadanka Netherland intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waraysiga gaarka ah aan la yeelanay siyaasi Cabdisaaq Siciid Seed waaniga Maxamed Baadire bulsha TV Hargeysa